in ka badan 900 oo qarni waxay ahayd kiniisad ku taala magaalada Istanbul oo ay lahaayeen boqortooyadii Byzantiniinta baba loo yaqaanay Rome ka bacdi markii uu la wareegay suldaankii weynaa Maxamed Fatih sanadii 1453 waxaana uu bedelay Maxamed al-Fatih suldaankii weynaa suldaankii ugu saameynta badnaa boqortooyadii islaamka ahayd ee caalamka xukumi jirtay ee Cusmaaniyiinta fadhigeedu ahaa magaalada Qustantiniya furashadii magaalada Istanbul Maxamed al-Fatih ayaa la wareegay kiniisadda Hagia Sophia ku dhawaad 500 oo sano ayay ahayd masaajid ka mid ah masaajidada ugu waaweyn caalamka isla markaana muslimiintu ay ku tukato ka hor intaanu Mustafa Kemal Atatürk aanu bedelin madxaf la soo booqdo isla markaana loo soo dalxiis tago muddo 85 sano ka bacdi waxa lagu soo celiyay Hagia Sophia masjid bedelida uu sameeyay Kemal Atatürk waxay ahayd falalkii foosha xumaa ee uu ku tirtirayay astaamaha ay lahaayeen muslimiintu Turkigu iyo guud ahaan shucuurta islaamku dadaal dheer oo u galay madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu ku guuleystay in masaajid dib looga dhigo Hagia Sophia oo ahayd 85 sano madxaf la soo booqdo haddaba Hagia Sophia waxa uu kaga duwan yahay masaajidada kale ee muslimiinta maxaase ay uga dhigan tahay guushan soo ceshashada Hagia Sophia waddanka Turkiga iyo guud ahaan wadamada muslimiinta haddaba muuqaalkeena maanta waxa uu ka hadlayaa masjidka Hagia Sophia seenu bilowna haddaba magacaygu waa Xasan Nuuriin Xusni haddaba seenu bilowno haylaabin muuqaalka inaad like saartid sidoo kale comment muuqaalka inaad subscribe saartid haddii aad ku cusub tahay sidoo kalena like saartid hana ilaabin comment wixii aad ka qabtid raygaaga magaca Hagia Sophia oo magac ka yimid luqadda Giriigga macnihiisu yahay xigmadii muqaddaska ahayd amaba xigmadii weyneed waxaana dhistay dowladii Byzantiniinta ee ka talin jirtay waddanka Turkiga iyo Yurub loona yaqaanay Rome ka hor intaanay gacanta u gelin boqortooyadii islaamka ahayd ee Cusmaaniyiinta iyagoo xilligaa u dhisay si uu u noqdo kiniisadda madhabta Orthodox-ka ee ugu weyn Yurub sidoo kale waxa ay rabeen inay tusaan awoodoodu intay leeg tahay boqortooyadii awoodda badnayd ee Byzantiniinta sidoo kale ay saameyn ku yeeshaan bariga Yurub dhismaha kiniisaddan ayaa qaatay 5 sano oo xiriir ah dhismahan oo ka koobnaa mid aad u ballaaran isla markaana lahaa khudbi aad u dheer oo dhererkiisu gaadhayo 56.5 mitir dhisida kiniisaddaas waqtigaas ka hor intaan masaajidka laga dhigin waxa xusid mudan in dhagaxa lagu dhisay Hagia Sophia laga keenay wadamo kala duwan cabirka masjidka Hagia Sophia ayaa cabirkiisu leeyahay 82 mitir halka dhererkiisu gaadhayo 55 mitir waxaanu leeyahay 9 albaab oo kala duwan waxa xusid mudan sidoo kale markii ay la wareegeen Cusmaaniyiintu dhismaha masjidkan waxaa lagu daray 4 khudbi oo dhaadheer kuwaas oo ilaa maanta ay ku sugan tahay amaba ku yaala oo ka mid ah astaamaha masjidka Hagia Sophia sanadkii 537 miilaadiga ayaa boqorkii Byzantiniintu amar ku bixiyay Justinianskii koowaad ee Roomaanka uu ka talin jiray laga bilaabay Spain ilaa bariga dhexe dhisida kiniisad ugu magac daray Hagia Sophia si ay u noqoto madal diimeed oo ay Kiristaanku gaar ahaan madhabta Orthodox-ku ay isugu yimaadaan ay ciwaan ugu noqoto amaba awoodii Byzantiniinta oo hogaaminayay Justinianskii koowaad waxaanay kiniisad ahayd 916 sano ka hor intaanu la wareegin halyeygii islaamka ahaa dhalinyarta ahaa ee Maxamed al-Fatih suldaan Maxamed al-Fatih waxa uu la wareegay caasimadii Byzantiniinta ee Qustantiniya loona yaqaan maanta Istanbul Maxamed al-Fatih waxa uu ka iibsaday baadariyaasha kiniisaddii Hagia Sophia waxaanu ka dhigay masjid waxaanu u bixiyay waqaf waxa xusid mudan magaaladu ma lahayn masjid markii uu qabsaday Maxamed al-Fatih waxaanu ku iibsaday hantidiisa gaarka ah waxaanu u bixiyay waqaf inay ku tukadaan ummadda muslimiintu ayna noqoto hanti ay leeyihiin muslimiintu
waxaanu magaalada Qustandiniya u bedelay Istanbul oo noqonaysa hoygii islaamka. laga bilaabo waqtigaas Hagia Sophia waxa uu ahaa sumad diimeed oo muujinaysa astaan ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ee islaamka ee hogaaminayeen khulafadii Ismaaniyiintu. waxaa dhacday sanadkii 1923 dhacdo murugo leh oo ilaa haddana nabar ku ah bulshada islaamka in la baabi'iyey khilaafadii islaamka ee ugu dambeysay ee maamusha caalamka islaamka. waxaa barbar socday burburinta khilaafadii islaamka. sumad kasta oo islaam ah oo lagu burburinayo oo raad ku leh khulafadii Ismaaniyiinta laguna bixiyey hanti iyo maal. sidii xusud mudan magaaladii Istanbul waxaa loo bedelay Istanbul. sidoo kale masjidkii weynaa ee Hagia Sophia waxaa loo bedelay madxaf loo dalxiisto. haddaba bilowga bishan ayaa madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu shaac ka qaaday in Hagia Sophia lagu soo celiyey gacanta masjidkii ay ahaan jirtay awal laguna tukan doono jimcaha soo socda. Hagia Sophia waa mid ka mid ah halbowlayaasha ummadda islaamku leeyihiin siduu Ilaahay quraanka ku sheegay in la furan doono magaalada Qustandiniya oo Istanbul maanta loo yaqaano uuna furan doono oo nasriguna iman doono. taasina ballantii waa ay timi waxaana furtay Maxamed Al-Fatih. haddaba duufuridda Hagia Sophia waxay ka xanaajisay nabarna ku noqotay wadamada Greega oo madhabta Orthodox-ka haysta amaba ka awood weyntahay. sidoo kale waddanka Ruushka oo haysta gebi ahaanba madhabta Orthodox-ka ka mid ah labada madhabood ee ugu waaweyn Kiristanka marka laga yimaado Katoliga. sidoo kale waxaa xusid mudan wadamada Carabta, Sacuudi Arabiya, Emiraadka in ay iyaguna ka xanaaqeen. taasi waxay noqonaysaa nasiib darro iyo ayaan darro ku habsatay wadamada Carabta halkii ka soo dhaweyn lahaayeen masjidka in Hagia Sophia dib loogu soo celiyo gacanta masjid khayr leh. waa ay ku murugoodeen waana ka xanaaqeen. haddaba daawade waxaanu ka faa'iideynaa taariikhda faca weyn ee Hagia Sophia inay ka mid tahay dhaxalada ay leeyihiin dadka islaamka. halkaa magacaygu waa Xasan Nuuri Maxamed Xusni. halkaa nagala socotaana waa kanaalka Xog Iftiinshe. daawade haddii aad ku cusub tahay kanaalka ha ilaawin subscribe, sidoo kale like, riix gambaleelka oo like saar. sidoo kalena ha ilaawin inaad fariin noo reebtid. waa mahadsantiin meel kastoo aad joogtaan.